aniga maalintaas la dilaya cabdirashiid 8 saac iyo bar duhurnimo ayaan waxaan joogay iskoola bolodsiyo xuseen kulmiyo khudbayaha oo dhahay yeere yam ninkii yeere yam yaxaas qaaday yam aamusuga ha koor imaanina qaata waa barnaamijka warkaas u daro wargaalka ha dhagaysaninay ka tagay wargaalka ha dhagaysanina meesha laga qabtay rag la dilay lagu daro wadaadka 1969 dhacdooyinkii dhacay 69 bishii Maarso ayaa doorasho ka dhacday dalka doorashooyinka dalka ka dhacayna waxay ku fiicnaayeen waxaan hadda maanta jiidkaas maalina hal maalin dhacayday bisha Maarso maalin kamid ay dhacay hadda intaan xusiisto 1959 doorashadii koobaad dhacday bishii Maarso ay dhacday 64 dhacday doorashadii labaad bishii Maarso ay dhacday doorashadii saddexaad waxay dhacday 69 waxaa bisha Maarso ay dhacday aniga doorashadii 64 anaa ka qayb galo anaa xisbi la dhihi jiray SNC aan u codeeyay oo anigu waxaan raaxamar ahay aan u codeeyay nin la dhihi jiray Cali Wardiye بريمة كنت تاتو كقراي بريمة كنت تاتو نكاسر كقراي نكاسر كصباح حسب قال بعضه كصباح وحوي سانو حاج محمد حسين اللي راك صباح لبا كرسي ولا حوار حوار سيدي سبل لبا كرسي ولا قاي لبا دي كرسي او ريدي waxaa ku guulay waxa ahaayeen xisbi la dhijir liberale oo xaaj Braken la dhijir ku soo baxay iyo xisbi leegada oo ku soo baxay ninka la dhijiray محمد الشيخ أحمد قبيوم دكتور قبيوم labadaas nina 1959 ayaga ku soo baxay 64tina labadan nima ku soo baxday nin la yiraahdo muxuu ahaay xaaji maxamed xuseen oo saanu ka soo galay xisbiga raaxamarka banaadiriyo iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaay SNC oo ka soo galay ninka la yiraahdo Cali Wardiye 1969 dhacdooyinka ugu qaabta daray sanadkaas ay dhaceen sanadahaas hore waa biska normal ah laakiin 69 dhacdooyinka ugu qaabta daray doosamarreeb waxa maqaal soo gaartay in ninkii birima kanta taato lagu shubtay ee ninkii toota loo geliyay si aan loo fahmin oo qoran loo dhiibay oo ciidamadii ka ilaalada lagu dhaxdiray wala dilay birigaas hadii la arki lahaa laakiin wala garawaay birima kanta taato muxuu noqonayaa waxa waaye nikaalinta koobaad ninka ku qoran kursiga kaalinta koobaad ninka ku qoran birima kanta taato waa sugunta kanta taatana ninka ku xigeenkiisa waa saas la jiray marka hore dhibaatada dhan waxay ka bilaabataba marka horeba maxamed ibraahim cigaal ra'iisul wasaare ka ahay dalka cabdirashiid cali sharbaal kana madaxweyne ku ahay waxaa loo yeeray labada taliya saldhig taliya ciidan labada taliya ciidan taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiska waxa ahay maxamed abshir muuse mataan taliyaha xoogga dalkana waxa ahay maxamed siyaad barre labadooda waa loo yeeray waxaa la yiri intaan doorashadu ay ka dhamaato gubernatoraad amarka ka qaadanaysa maxamed abshir wuxuu war af Soomaaliga si sheegnin inuu qaadamayo waxaas gubernator aniga amarka qaadamayo wax kala maysiin waa ka qaaday haliye saas deeyta darajadii inta dhigo shaqadii ma iska casilo ka tagay nin la yiraahdo waxa lagu bedelay jaamac al-qorsheel lagu bedelay qorsheela booskiisa galay inkastoo ku xigeenkiisina uu ahay jaamac maxamed qaalib ku xigeenkiisa ahay hatta jaamac maxamed qaalib waa ka carooday barigaas cigaal wuxuu dulmiloo baa tahay anaa ku xigeenkiisa ahay maadaama shaqada uu ka tagay aniga ila kursi ku fariistay baadigu wuxuu raali lahaa annas si kale wuxuu arkaa annas kale wuxuu aragtaa sidaas oo kan magac beeleedu fiishay marka maadaama kursiga ninkii beesha ku fadhiday ninkii beesha lagu soo celisho oo u fiirshay kan uu fiirshay ku xigeenka ana ahay ku xigeenka hada General Daawud markuu dhintay maxamed Ibrahim ku xigeenkiisa ay asiga kursiga ku fariistay laguma markaas lama dhihin reer hebel lama dhihin markeen jiraarkiyada tabtay ka soco markii 69 sidaas ay dhacday Elbuur waxa ka dhacay ninkii xisbi birima kanta taato ku qoray oo beesha dudula ahay goobta lagu dilay markuu ku guuleystay magaalada dhexdeeda lagu toogtay
ku-xigeenkiisi ninkii iskunta ka tintaata ku qoraay ku-xigeenkiisi oo u dhashay beesha mursade aa kursiga ku fariistay markaasaan annaga reerleyana isku xifaalay jirnay waryaaya gadublow doqomaad tihiin kursigiiniyaa mursado qaataan adinkaana disheen adin ku disheen xifaalahaasaa markaas dhaca dhibaatadii berigaas dhacday waxay gaartay adiga maarsay dhacday marso abriil maajo junio luulio agost september october حوار معك نعم october 15 october waxay noqotay in madaxweynihii la dilo laakiin inta ka horeyday aw 3 jeer sigtay xamar ku sigtay mar anaaba xusiisto oo isagoo soo maraayo airport inta ka yimid xiray qaasin hotel jeedkiisii warshadiisa agteeda zoonaha soo maraayo dhulkaas galaalo dhan waa banaanay hadda waa la wada degay dhulkaasoo banaan aabambaan maana inta lagu tuuray ay baawurka afkiisa horo banaankaa ku dhacday darawal brava hawadee inta wagacsiiyey oo dhinacaas kula orday oo ancelotti suuqa ancelotti soo marsiiyey madaxweynihi suuqa ancelotti soo marsiiyey saas uu lasoo orday meeshaan kasoo saaro tiyaatarka kasoo au ka gelsha villa somal oo villa somal awalba tiyaatarkaa la geli jiray mogiye meel kale lagama geli jiray hadda xaggii u wareegtay madaxtooyadii berigaas 2 jeer iyo 3 jeer waa sigtay cabdirashiid cali sharmaarke maalinta dambe sida hadda wararka suuqa ku jira waxaa la yidhi 15 october nin kismaayo laga soo bedelay guuxa beledkii na soo gaara waay moogtaas saxda iyo runta wuxuu yaa ma naqaan guuxa na soo gaara nin kismaayo joogaa lasoo abaabulay asaa la yidhi bax tag meeshaas laascaanow tag laascaanow markuu garoonka soo dego aqalka madaxtooyada soo gelaya albaabka ninkii askariga taagnay xabad ku furo meeshaas ku dilay meeshaas markuu ku dilay maxaa dhacay isla saaca habeennimadii aniga maalintaas la dilaya cabdirashiid 8 saac iyo bar duhurnimo ayaan waxaan joogay iskoola bolosiyo yar aan saaxiib ahayn oo la dhihi jiray maxamed cali xuseen oo aabiis biliiska yahay oo meesha degan aan aaday anoo meesha sii mara iskoola bolosiyo albaabkiisi maraayo aad nuxnuxdigiyo beebayaal ordaayo xerada la dhihi jira fiamo oo ku tiila xamar jijab beebayaalka baxayo ordaayo afisyoon usoo dhan arkay maxaa fahmi weysan waa maxay waxa askartaan kala ordayso kuwa yireen war madaxweynaha la dilay maanta yaa cabdirashiid oradan soo qaaday marka waxaan siri waxaa bantooba imaha waxa yarme gurigaagii meelad ka gasho arkimis waan lagu xiraaga waa soo carar danaan socod waa kasoo baaqday dib soo carar xaafadii mid asaan dhalinyaradii noo sheekaysan cabdirashiida beriga la dilay yaa kuu sheegay isla hal 11 saac idaacadda laga sheegay 12 saac galabtii sheekh mukhtaar maxamed xuseen in la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka ahay berigaas kaasaa idaacadda ka hadlay asoo wuxuu dadweynaha Soomaaliyeed madaxweynihii waa la dilay gacanka gardanaanteeda dadweynaha waxaan faraa nin walba gurigaaga gal gurigaaga joog socodka joojiya ciidanna magaalada lagu soo daayay wax socaayo wax dhaqdhaqaaqay laba bandoog magaalada reer 5 maalmood 11 saac iyo bar alla keen meedkii 5 maalmood meedkii 15 17 18 20 la aas 20 marka la duubay 22 ciidamaduna inta soo baxaanay ay la wareegeen dalka xukunka la wareegeen ciidankaas markaas la wareegay gulihii saree fawrada raglayaan 25 nimay ka koobnaayeen habeenka lala wareegaya aniga kookaanaay maqaayadan burgiisa muusiya Dubai nin yiraahdo Axmed Xaad oo aan maqaayad iskala shaqeyno aan inta kiciyo 10 saac oo habeenimo aan waxaan yiri wariyaa ordegada noo doon dega wax la yiraahdo kari jiray berigaas ordegada noo doon waa baxay degadiyo doon aniga ninka 30 daqiiqo camal maqnaahay barkee degada waxa la soo qaaday gurigan haweenka meesha ku dhisan yahay guri ka soo horjeedo sarta in dhacda la yiraahdo mashinaadta ku til meeshaas waqti ka soo qaado oo 30 daqiiqo kaliya uga maqnaahay ninkii waa waagi cadaadad maqaftiin dhulka soo 11 saac la gaariyay bar ninkii waa maqaya goor damuwi war maxaa kugu dhacay war waxaad ogtaa la arko magaalada taangiga iyo askariga ordaayo qaal Allah ku tus war kaale hayay ma qalaabay samay rabaan askartu
oo waxaan lahay askarta soomaaliya inqilaab maba samay karto ninkan askariga ah oo korneelka ninka baarlamaanka ku jira oo xildhibaanka ama wasiirka ilma adeer yihiin adeerkiisa afkumbayaa jiro soomaali dhaqankeeda saas waaye qabiil maba ilaa dhiman kale niman barnaamij kala wato xukunkii sidaasay askarta kula wareega askarta marka la wada aniga maalintaas waa baxay markaasaan kormeer aadi aan meelaha fiirfiirshay xeelgaaban tegay magaalada meelo badan fiirfiirshay waxaa ii muuqatay laba habeenaan soomaaliya isku uura laba jeeran arka soomaaliya isku uura habeenka calanka la saaraya 60-kii habeenkaas waxaad moodaa dadka dhan kulligood aabbiyi hooyo inay isku dhaleen say isku faraxsanaayeen isku jeclaayeen habeen maalintan dambe oo talaadadaahoo kacaan ku dhasho revolutionaha dhashay maalintaasna dadka kulli isku uuraad moodo kulligood dowladdaasi nacaysanaayeen markeed baagamuundo iyo silac iyo dhib ay haystay xoogaa waa dadkii waxaad moodaa in culays badan laga dejiyey nimanka askarta ahay oo xukunka la wareegay ayagoo 25 ahayn marka si farsamo ay u sameeyeen xerada raag la dhihi jiray dekedan meeshii ku dhisan tahay xero ku tiilay oo military oo lahay raag xero la yiraahdo ku aali jirtay xeradaasaa lagu aas-aasay Consiglio Revolutionario Supremo walihii saree thawradda nimanka leeyahay meeshaasaa lagu aas-aasay meesha marka lagu aas-aasay 5 nin booliiskay ahaayeen 20 nin insurgent ay military 5 booliiskay ahaayeen shantii haddaan aan ku carab dhaboon ku magacaabo jaamac ali qorsheel oo taliyaha ciidanka booliiska ahay xuseen kulmiye afrax oo generaal ahay isaguna 2 generaal 2 meeshaas 2 generaal ku jirto iyo 3 korneyl maxamuud mire muuse la dhihi jiray maxamed sheekh cusmaan la yiraahdo iyo ninka kale booliiska ayo qorweyne axmed maxamuud cadde shantaas booliiska ka yimideen 20 kalena insurgent ka timi military 20 kaas insurgent ka yimideen markee بالمثل kulligood markii guud ahaan kor laga sheego waxay ahaayeen 7 kabtan iyo 7 mijir iyo 7 korneyl iyo 4 generaal 25 saasi ku ahaayeen 4 generaal maxamed siyaad barre koowde iyo ninka la dhihi jiray maxamed caynaansho guuleed labadaas 2 generaal oo xoogga dalka socday ahaayeen jaamac ali qorsheel iyo xuseen kulmiyana 2 generaal oo booliiska ka socday ahaayeen korneelada waxa ahayd saddexda booliiska ka tagtay iyo 4 xoogga waxa ay salaad gabeere cabdalla maxamed faadil maxamed cali samatar iyo ninka la dhihi jiray cali mataan xaash 4taas iyo 3 booliiska 7daas korneelada kuwa mijiradii iyo waxa isaga qayb darmay markaa gaashaanlayaalkii isaga kay qasmoogii 7 waa ayaguna marka saasi ku ahaayeen taasi ciidanka waa booliis sare thawradda saasi ahaayeen ka soo markii kacaanku shaqeeyay shaqo fiican oo alleela aniga aan aad ula dhacay oo sameeyay markii dastuurka oo sameeyay jaartarkii koobaad oo soo baxaya waxa ku qorreed 13 qodob oo ahay 7 gudaha iyo 6 dibadda 7 gudaha waxa qorreed shaqo ku dhisan cadaalad iyo midnimo koow in dalka laga baaba'sho axsaabta markay ku habboonaataan hal xisbi la dhiso la baaba'sho baarlamaanka waxyaabo odon 7 erayadii haddaan xasuusinay saas ahay haddaad fiiriso sidii warqadan ay ku dhawaaqeen sidii u qabteen in farta Soomaaliga la qoraayo ku jirta magtaa marka horta shaqo iyo cadaalad markii yiri dadkii shaqaalihii 4 jamiya 5 qayb loo sameeyay dugsi dhaxan ninka ka baxo iskool booliis oo galay ama booliis oo noqonay ama wuxuu noqonay geedka maxaa vigile ama meel shaqalsiya dugsi sare ninka ka baxo xalan uu galay xalan markuu galo 2 maado mid noqay ama wasaaradda shaqalka si hayay ama jaamacadu aaday wala maxaa soo haray
xirfadle yaa waay waa darawal fundi friamo tubiste letergiste rinjile intaas xirfad lagu waay ficha goberno ficha laba war meel yiraahdo oo ku til stadia conis xafiis ku yile looga yeeray qofka wasaaradda wax rabato ficha laba war tige way leedahay 4 fundiyaan u baahana 4 fundiyaan u baahana ayaga idaacadda ka sii deynayaan raadiyaal ka sii deyhaa waxa la leeyahay wasaaradda heblo waxay u baahan tahay 4 fundi cidda rabtay welcome waa la imaa dad 50 qof 60 qof 100 qof imaa imtixaan laga qaada 4 ugu fiican la gudbaa haddii khaasamay 10 baramost oo wada fiicnaad 4 hesho la gudbaa 6 kale keyd laga dhigaa la wicima ay mar dambe imtixaanka laga qaadma waa keyd la keedaa wasaaradda talbato haddana qof hor looga diray waa nidaam qurxoon maxaa soo yiri dadka aan waxba aqoon waxna qori waxna aqri qoon waxna aqoon moogta oo adeegaha iyo ilaaliyaha iyo laga dhigo degmooyinka laga qaaday jir waxa la leeyahay degmo hebel waxaad soo dirtaa xafiis la dhijiray BRO ajir xafiiska xiriirka degmooyinka BRO la dhijiray xafiiskaas la leeyahay loo soo sheega waxaan leenahay 4 waardiyaha loo baahan wasaaradda u baahanta bas degmooyinka laga wacaa inta la kaalay bas 4 waardiyaha degmada laga qora oo la diraa wasaaradda saas markaas 74 waxaad moodaa magaalada Muqdisho dadka ku nool aniga gobolada war uma hayo laakiin magaalada Muqdisho dadka ku nool qoys ku nool qoyskaasu ama qoyska dhan shaqaale dawladeed ahaayeen qoyska ugu liitoon dad badan ka shaqeyn hal qof ka shaqeeyahay wallahi تعجبي بل يبقى بس لكن بقرموها لا متقنا markii horta waxaan ka boodi waxa soo dhaxgalay dilkii wadaadada 75 ayaa wadaadadii la dilay wadaadada dilkoodana maxaa koos gareeyay barnaamij la yiraahdo waxa uu soo jeeday Maxamed Siyaad Barre sinaanta ragga iyo dumarka waxa uu yiri ma sulus iyo sudus iyo waxaas uba jiraan gabadha haddii hantida aabiyeed uga dhinto iyada ale wiilka iyo iyadoo hadda labadooda qaybsaa lama ka qof kale wada maxaan siyaad barnaamijkaas asna waxoogaa diinta waxna kama aqoon waa ku taraatay culumadii Soomaaliyeed waa ka qeylsheen laakiin culimada waaweyn waa cabsadeen haddii ilaahay laga cabsado waa ogaan culimada waaweynaay oo caanka ahay waa cabsadeen waa gambadeen laakiin culimadii culimada dhaxaadka ahayd qeylshanayeen waxaas ilaahay ma ogolo وانا حاران قطعا أنا هل نعم بتوسع تينون رجل إسلام وذوال ديجر رجل دلو قلي وذوال ديجر توسون توسوس تاجو حسين كل يوقف بيها يداي يري يم نينكي يري يم يا حس قاضي يم أمسو رجع هكور ما نلقاته واي برنامج كه وركاز بدرو ورقال كهاد دقي سنين أي كتاعي ورقال كهاد دقي سنين ماشي على قبطي رجل دلال بدر ودات كاس marka waxay waagaas horta waa qaldan waa soo baxnay 67 markii la gaaray dalka dhan baxalaabay dalkaas waa laabay markii la sameeyay xisbiga hanti wadaaga kacaanka